barasaabka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Salel Mawlid Maxamed Nuur oo kormeer ku soo maray xafiisyada wasaaradaha laamaha kala duwan ee degmada Saylac meelaha uu kormeerka ku soo maray barasaabka cusub ee gobolka Salel ayaa waxaa ka mid ah wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta iyo sidoo kale wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda iyo baanka dhexe laantiisa degmada Saylac mas'uuliyiintu uu kula kulmay wasaaradihii kormeerka ku soo maray barasaabkan cusub ee gobolka Salel Mawlid Maxamed Nuur ayaa waxa ay warbixin kooban halkaas ka siiyeen barasaabka gobolka Salel iyagoona uga mahad celiyay kormeerka lama filaanka ah uu ku soo kormeeray wasaaradaha laamaha dawladda ee degmada Saylac barasaabka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Salel mas'uuliyiinta halkaas ka hadlay ayaa waxa ka mid ah isuduwaha kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee gobolka Salel iyo maamulaha kalluumaysiga degmada Saylac Faisal Ibrahim Kinko barafka ay ka soo qaaday Djibouti Saylac suuqa halkan wuxuu ahaa Djibouti halkan waxa ka dhacay fairfish markay mashruucan ay ka qaadatay AU-da ay noo sameysay mashruucan inay dabada naga taagnaatan jecleen ay barasa oo nagu ilaaliso oo ay maalgelin ku sameysay laftigeeda wan yar bay ballan qaaday bolosiga wasiirka inay iyadu gacan ay ku hayso halkan barasaabka gobolka Salel oo wili dhex mushaaxaya kormeerka uu ku soo maray wasaaradaha laamaha dawladda ee degmada Saylac ayaa waxa uu sidoo kalena booqday suuqa kalluunka iyo hilibka iyo qudaarta degmada Saylac isla markaasina halkaas ay ka adeeganayeen qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan degmada Saylac sidoo kalena wuxuu halkaas uga sii gudbay isla markaasina uu booqasho ku tagay dawladda degmada Saylac waxaana halkaas ku soo dhaweeyay isla markaasina warbixin kooban ka siiyay kana mahad celiya booqashadan ugu yimid barasaabka cusub ee gobolka Salel xogayaha dawladda degmada Saylac kormeerka kiliska ah ee uu nagu soo maray maanta barasaabka cusub ee gobolka aad iyo aad waana barasaabka ugu horeeyay degmada Saylac goobaha ay ku shaqeeyaan degmada Saylac si fiican soo kormeeray wana arrin horseeda barasaabka yimaada wuxuu ka kaan jiray inuu aan isku tagi jirnay xarunta gobolka wareys naga qaadan jiray laakiin gudoomiyaha waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa isagoo soo taabtay meel kaste systemka ku shaqeynaysay iyo qaabka uu shaqeynaysay soo kormeeray annaguna aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa waana shaqo wanaagsan waana mahadnaqaynaa gabagabada ayaa waxa isagu halkaas ka hadlay barasaabka gobolka Salel isagoona sheegay inuu ku faraxsan yahay kormeerkan uu ku soo maray laamaha kala duwan ee dawladda ee degmada Saylac sharaf ay tahay inaan xarun qurux badan oo dawladda hoose Saylac leedahay dhex joogo waana ku amaanayaa horumarka iyo dadaalka dawladda hoose Saylac gudaheeda ka muuqda insha Allah waxaan rajaynayaa qaybaha kale ee dhimanna inay sidaas horumar ballaaran ka muuqan doono aad badan mahadsantahay xogay barasaabka gobolka Salel ayaa noqonaya barasaabkii ugu horeeyay oo booqda gabi ahaan baarlamaha xafiisyada kala duwan ee dawladda waa Cali Axmed Diiriya wararka Ariel TV magaalada Saylac.